waxaa bilaabantay tirinta codadka sanaaduuqda ka soo xarootay degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Iskuulka Sheekh Bashiir oo ah goobaha ay yaalaan sanaaduuqdu ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee degmada Burco iyo waliba sidoo kale Kaltuun Sheekh Xasan oo ka mid ah komishinka heer qaran. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay inay si toos ah u bilaabeen tirinta codadka maadaama ay sanaaduuqda soo wada xarootay. Kaltuun Sheekh Xasan ayaa fartay warbaahinta iyo sidoo kale dadyoga isticmaalaya natiijo hordhaca oo been abuur ah in laga feejignaado. waa tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa. waxaan ku sugannahay caawa Burco waxa saadarkaysan waxa socda tirintii codadka insha Allah waxaan ku rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inay noo soo dhamaato way noo soo wada xaraadeen goobihii oo dhan 390 goobood ayaa soo galay 390 ka goobood ma hawl yara tirintooda iyo isugeyntoodu laakiin waxay komishinka doorashooyinka qaranku iyo hawlwadeenadu ay aad iyo aad u rajeynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay u soo dhameystiraan. waxaan intaa ku darayaa oo leeyahay dadweynaha ama cid kasta social media soo dhigaysa natiijo hordhaca oo iyagu ay sameysteen. waxaan uga digayaa natiijo aan ahayn komishinka doorashooyinka qaranka inaan la qaadan karin la soo dhigi karin dambi ay tahay cid kasta oo soo dhigta marka ha laga digtoonaado. ku suganahay Burco iskuulka Sheekh Bashiir warehouse-kii komishinka waxaan joognaa oo noo soo wada xarooday guud ahaan goobihii degmada Burco oo ka kooban 390 goobood dhammaantood si nabadgelyo ah bay noogu soo xaroodeen. ilaahay baa mahadale. waxaan imika bilaabaynaa insha Allah oo aan hadda ka howlgelinaa fayskii labaad ee tirinta codadka insha Allah isagana waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh haddii ilaahay ka dhigo inaanu degmahaan iyo komishinka gobol ahaanba aan insha Allah ku soo gabagabayno. Shaafici Maxamed Ibrahim Saab TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. waa tahay saacadu waa 12 bilbil sayid waxa lagu suganahay xarunta gobolka komishinka doorashooyinka xilli ay saacadu ugu dambeeyay soo baxayeen in komishinka doorashooyinka ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee doorashooyinkii loo daray isniintii shalay toole. haddaba xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka wadani ahna oo qaybsamaha xisbigaasi arrimaha doorashooyinka oo halkan warbaahinta ku hadlay waxa uu shacab ka qaaday in dib u dhac ku yimiday sanaaduuqda tirinta codadka gobolka Maroodijeex isagoo sheegay in arrintaasi loo ballamay maalinta bariya isla markaana isla afkarteen komishinka doorashooyinka. waxaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay sababta ka dambeysay dib u dhacaasi ku yimiday isagoo sidoo kale fariin u diray taageerayaasha kala duwan xisbiga mucaaradka wadani. Maxamed Sadiq Dhabe xogayaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka wadani oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaan hadda ka soo baxnay xarunta guud ee komishinka qaranka waxaan ka soo baxnay xaruntii lagu tirinayay tirada gobolka Maroodijeex ee degmada Hargeysa. si wanaagsan ayaa arrimuhu socdaan. waxaan furnay hal goob oo kaliyaata oo saambala goobaha kale waxaan ugu talagalay berito todoba inay bilaabmaan baa qorshu yahay. magaalada Hargeysa waxaa yaala halkan 699 sanduuq guud ahaan gobolka Maroodijeex sanaaduuqda taale waxa weeyaan 970 marka waxa la doonayaa marka hore degmo ahaan in la tiriyo 699 ka sanduuq. natiijaduna waxa filayaa insha Allah inay waqti qaadan doonto. waxa la ballamay bari hadii la hayrato 7 subaxnimo in la bilaabo shaqada rasmiga ah ee tirada isugeynta sanaaduuqda degmada Hargeysa 699 ka sanduuqa. kadibna la isu wareegay afarta degmo doorasho ee gobolka Maroodijeex uu ka tirsan yahay. shaqadu waxay soconaysaa 7 ilaa 11 habeenimo. aad buu dadaalayaan komishinku wakiilada asxaabta qaranku iyaguna ilaa xilliga way joogaan. xarayna waxay habeen weyn oo laga shaqeynayay in la gudoomo oo la qabto dhammaan sanaaduuqda ka soo hoyatay deegaanada Hargeysa iyo hareeraheeda. marka waxa filayaa oo diilahayda in beritoole 7 shaqadu bilaabmayso. warka natiijada iyo arrimaheegana laga helayo komishinka. annagu xisbi ahaan kooxihii nooga shaqeynayay tirinta waa heegan labadii shiftiba. waxaana runtii aan rajeynayaa inay noqoto doorasho taariikhiya sidii ay inoogu dhacday nabadgelyada ahaydna inuu ilaahay inoogu dhammeeyo natiijada rasmiga ah ee la yeedhinayo. feejignaan badan baa annagu aanu ku jiraa. waxaanu ku jiraa oo kale inaanu maaragtay qorshahayaga ilaalinta codadka iyo sanaaduuqda iyo inaanaan mar ka rawixin oo gobolka iyo waxa weeye habeenkuba noogu dhacay
iyo inaanu sugno procedureka dhabta ah ee u soconayaan arrimahani ku sharci iyo ku farsamada inaanu la ogaano commissionka ilaa halka ugu dambaysa aanu gaadhayno oo ah sheegidda natiijada codka marka xisbi ahaanna weli maan celinaynaa taageerayaasha naga farxiyey codka badan la siiyey waxaanaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu dhowro oo aynu sugno natiijada rasmiga ah oo socon doonta inta ay ku dhammaanayaan tirada 699 sanduuq ee degmada Hargeysa iyo wadarta guud ee sanaaduuqda gobolka Maroodi Jeex oo ah 971 marka dawladdu iska yar dhowri waxaan sayidii sheegay caawa xisbiyaan maadaama aanu ka soo baxnay xaruntii tirada in hal sanduuq la tiriyo bari shaqada u dhacday oo aanu caawa wixii kala farsamo ahaa aanu commissionka isla diyaarinay shaqaduna si rasmi ah hadii la yiraahdo ay bariina ugu bilaamayso aad loo wanaagsan nidaamka shacabka Soomaaliland ayaa u dhigtaagay hordhaca natiijooyinka doorashooyinka Soomaaliland ee loo daray intii shalay taasi oo gudoomiyaha commissionku uu fiidkii hore caawa shaaciyay in ay suuragal tahay in lagu dhawaaqi doono xilliga dambe caawa ama maalinta bariya Cabdiraxmaan Cali Daawud telefishinka Horyal Hargeysa